maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay xukun ku riday mid ka mid ah labadii eedeysane ee loo haystay inay ka dambeeyeen dilkii wasiirkii hore howlaha guud ee guriyeenta Cabaas Siraaji. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Shuute ayaa ka warbixiyay qaabka uu u dhacay xukunka. taariikhdu markay ahayd 14 bishii 6 2017 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay mar saddexaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid 29 jir ah ina nadiifo Faarax Cabdi ku dhashay Galgaduud ka tirsan ciidanka badda xooga dalka Soomaaliyeed kaas oo xafiiska xeeldhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiga ah dil bareer ah kadib markii uu laba xabadood ku riday gaari uu waday marxuum Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka hal xabad oo ka mid ahna ay wajiga kaga dhacday marxuumka sidaasna uu ku geeriyooday 3 bishii shanaad 2017 abaaro 19 habeenimo. sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in 28 bishii afraad 2017 abaaro 15 galabnimo uu sameeyay isku day dil kadib markii asagoo saaran gaari qooqan ah uu ku qabtay qoragii uu watay taliyaha saldhigga Xamar Jajab iyo askartii la socotay oo shaqo ka hayay isgooska Ceelgaab sidaasna looga qaaday eedeysanaha qoragii uu watay. dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd aayadda 178 suuratul baqara qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay aragtay qoraalka eedeysane dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid uu ka hor qoray garsoorka ciidanka hortiisa kuna cadeeyay in uu laba xabad ku riday gaariga uu waday wasiir Siraaji sidoo kale wuxuu qoraalka ku sheegay in 28 bishii 6 2017 laga qaaday qoragii uu ku qornaa kadib markii ay murmeen ciidankii ilaalinayay Ceelgaab. maxkamaddu markii ay dhageysatay markaatiyaashii la hor keenay maxkamadda midna ay u weydiisay marag furkooda waxay ka hor cadeeyeen garsoorka hortiisa in ay arkayeen eedeysane Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid oo xabad ridaya markii la joojiyay gaariga uu saarnaana uu isku dayay in uu baxsado sidaasna ay si qasab ah ugu xireen. maxkamaddu markay aragtay cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid yihiin cadeymaha laga qoray markaatiyaasha sawirada laga qaaday baabuurta la isticmaalayay cabirada laga sameeyay goobta uu dilku ka dhacay qoragii loo adeegsaday dilka warqadda cadeynta dhimashada marxuumka iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacayay eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji. sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo 3 alifle Usmaan Salaad Barre oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed haddii aan loo haysan dambi kale. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. wabillahi tawfiiq.